aqbalo allah inagu daro kumanaanka naarta lagu xoreynaya rabbi inagu daro waxaan doonayaa aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay rabadaan tahay aan rabin kayskan inaan ka hadlo sideedaba disgusting ah ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsamay waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil rabadaan waa bishii cibaadada bil buuqa ma aha bil iscaaya ma aha bil isfadeexadeeya ma aha bil iska been sheega ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareega ma aha waa bishii ilaahay gacmaha la horsanayay ee jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaadhi doonin anigoo taas anigoo ogni qaar badan dambaabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo kayskan ka hadlo magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaama waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaana gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi lahayd waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo sidoo rabbi igu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay ramadaan tahay halka waxaan soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan ilaahay sidoo ogyahay inaan hadlo waan soo manahay waa ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yiri qofka hore ha ka taageerin waxa laga yaabaa kii ka soo dhiijay inuu isna soo dilay kiiskana baadhada hadu dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodeyno waa long story aad bay u dheertahay wax badan oo runa jira wax badan oo beenaa jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga haynad kala rogataan halagu soo jawaabo adna intaan tiri haddana inta ina iga hayn sidii allaygu ogyahay sayrkayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi sidoo igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta Soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga image-kaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca lagu maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta rabadaan weeyaan Soomaalida la hortago maxay oo been ka gad ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idin la horimaado iga tagin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda ilaahay laga magan galaba iyo kulmaan haddaaban maanta been idin la soo hor fadhiisto oo isiraahdo maanta Soomaali been ka iibi haddii aanan waxaan dhicin sheego oo wiilka islaameed carabkiisa qaloociyo oo waxuuna odhanin wuu yiri aan idhaahdana ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu argan ilaahay u soo rogo carabku hay qalalo haddaan wiilka carabkiisa qaloociyo idinkuna aamiinta igu soo hufaa taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u falxun tahay aad bay disgusting tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko Soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad guruubiye ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex way u kala jabeen qolo tasma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninka raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii riwaayadiis ay hablayo hadmad guurso doontaan akuuku qaybtiisi markay tusma hadashana tusma runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii way oo saas ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay ka soo bilaabantay ka soo bilow ilaa ay habeen dambe idii halka fadhiyaysan laakiin qodobada ugu muhiimsan kaliya ayaan soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan exactly wixii dhacay sheego halkay ka bilaabantay ka soo bilaabo istab idraahdan maanta adin la wadaagtid igu wallahi oo billahi oo tallahi 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyn ee media dhexararaya ee dadkuna ku dambaabteen
keli haatay inaan inta xoog saaro maanta day noqoto in laga hadlo oo ilaa ay dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waan filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon kusoo toosin ah weligay ismaan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa inta dhibka ku noosho laakiin way dhacday waxay kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sannadood ayay kaawan yihiin ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba iyo xaq darraba marka waa inaan taas aamino haddaan isiraahdo saan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan aan u socday sanbuu yerisam baan erisam waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa wax waa akhir seegtaan kow waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationship-ka noqday ayaan doonayaa inaan anigu sayrkaya ka hadlo waxaa la yidhi tusumo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxani ah laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahay aan ahay waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur daljir nin la yidhaahdaa isoo qaban ilma usoo dhalay saad idinku waa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu la yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanay qaadiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay unbaa la hadlan wakiishay meherkaygu sidaabuu ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kale unbu ahaa ninbaa waxaa la yidhi geed baa lala tegayo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay bannaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alla meel wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ilaahayow alla ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unbaa arrintiisa ogaa kiiskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha